Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Shacabweynihii Shiinaha ayaa ku dhahay waxaad ku wanaagsan tahay inaad xanaanayso carruurta, gurigana aad joogto. Laakiin derbigaasi ama jidaarkaasi waa dumisay, waxayna orod ku gashay suuqa daawada. Hadda nasiib wanaag waa haweeney hodan ah oo haysata $15 bilyan, isla markaana ka mid ah liiska dumarka ugu saamaynta badan dunida. Waxay dhalatay Sonoji Huinjuan bishii Abriil sanadkii 1961, waxayna ka dhalatay qoys Shiineys ah oo noloshooda dhexdhexaad tahay. Yaraanteedii waxay jeclayd oo rajo weyn ka qabtay in ay mustaqbalka noqoto haweeney dhakhtarad ah ama farmashiile ku wanaagsan dhanka daawada. Waxayna hooyadeed ku dhihi jirtay, marka aan weynaado waxaan noqonayaa dhakhtarad caan ka ah gudaha dalkayda Shiinaha iyo caalamkaba. Hooyadeedna waxay ugu jawaabi jirtay, dadaal waad noqon doontaa. Haddaba Huinjuan waxay ku dadaashay inta ay iskuulka dhiganaysay culuumta sayniska. Waqti badan waxay akhrin jirtay buugaagta sayniska. Dadaalkeeda waa si laba jibaartay markii ay gaartay dugsiga sare, waayo xilligaas ardayga wuxuu u sii dhowaanayaa heerka qalin bedelashada. Huinjuan waxay rajo weyn ka qabtay in ay imtixaanka adag ee lagu qalin jibiyo ka hesho darajo sare si ay ugu mid noqoto ardayda jaamacadda, gaar ahaan kulliyadda caafimaadka. Waxaa laga dareemayay Huinjuan inta ay dhiganaysay dugsiga sare dadaal iyo wax akhrin badan, waayo waxay baqdin weyn ka qabtay imtixaanka adag ee dugsiga sare loogu baxo. Haddaba waxaa la soo gaaray sanadkii ugu dambeeyay ee dugsiga sare. Huinjuanna dhafar iyo wax akhrin badan ayay sii gashay. Waalidkeedna waxay ku dhiirigelinayeen in ay badiso wax akhrinta. Markii la soo gaaray xilligii imtixaanka, waxaa ardaydii oo idil soo wajahay cabsi weyn oo arday kasta wuxuu ka baqayaa inuu dhaco ama uu keeno darajo hoose, waayo imtixaanka waa mid kulul oo aad u adag. Haddaba waxaa la galay imtixaankii shahaadiga, wuxuuna socday dhowr maalmood. Qish ma jiro, arday ku caawinayana ma lahan. Imtixaanku waa adag yahay. Arday kasta wuxuu rajo weyn ka qabaa in uu baaso ama uu gudbo, isla markaana uu keeno darajo sare. Imtixaankii ayaa la aruuriyay, waxayna wasaaradda waxbarashada ee dalka bilowday in ay saxdo. Dhan kale, arday walba wuu baqayaa oo wuxuu is leeyahay, talow maxaa soo yeeri doono? Ma dhici doontaa? Ma baasi doontaa dhibco sare ama kuwa hoose midkee heli doontaa? Haddaba maalintii dambe waxay wasaaradda iclaamisay natiijadii imtixaanka. Arday badan ayaa gudubtay, kuwa kalena way dhaceen. Laakiin Huinjuan way baastay. Laakiin markii ay aragtay natiijadeeda, aad bay u naxday, wayna ka xumaatay dhibcaheeda. Ayadoo barooranaysa oo ku calaacalaysa mustaqbalkeedu wuu burburay ayay timid guriga. Laakiin hooyadeed ayaa dejisay kuna dhahday, maanta haddaad guul daraysato, birito ayaad guulaysanaysaa ee isdeji, ooyinna xal ma noqotee. Haddaba Huinjuan maxaa ka maqan? Waaba baastee. Huinjuan waxay la oysay oy ka naxday, waxay gaari weysay oy keeni weysay darajadii lagu geli lahaa kulliyadda caafimaadka. Maadaama ay ku guul daraysatay qorshaheeda koowaad, waxay u wareegtay qorshaheeda labaad, kaa oo ah inay ku biirto kulliyadda sayniska, gaar ahaan qaybta kemistriga. Markii ay Huinjuan ka soo qalin jibisay jaamacadda, isla markaana soo qaadatay shahaado baaj ah oo kemistri ah, waxay is aragtay ayadoo u nool una dhaqmaysa sidii dhaqanka u ahayd dadweynihii ay la noolayd. Waxayna bilowday raadinta shaqo. Markii dambe waxay shaqo macalinimo ah ka heshay iskuul ku yaalay magaaladii ay ku noolayd, kaa oo ay iska leedahay dowladda. Subax walba waxay u shaqo tagaysay iskuulka, waxayna maadada kemistriga baraysay ubadka dalkeeda Shiinaha. Waxayna bisha marka ay dhammaato qaadanaysay mushaar, kaa oo aan ku filnayn. Xaaladdeeda waxay ahayd sida ay tahay xaaladaha macallimiinta, taa oo ah dayn ku gaar. Ayadoo macallimad ah ayay guursatay. Waxayna guursatay nin shaqaale ka ah mid ka mid ah wasaaradaha dowladda, kaa oo asna subax walba u kala lahaa shaqada dowladda, isla markaana bisha marka ay dhammaato soo qaata mushaar yar oo qoyskiisa aan gaarsiin karin 20 cisho. Huinjuan nolosha sidaan ah kuma riyoon jirin. Yaraanteedii waxay jeclayd inay wax badan oo dhanka nolosha ah kaga duwanaato bulshada ay ku dhex nooshahay. Waxayna dhihi jirtay, tani waa nolol dhaqan ah
oo ay ku soo noolaan jireen waalidiintaydii hore. Laakiin anigu waa in aan la imaadaa nolol ka duwan midaan. Ma ahaan karo qof caadi ah oo ka mid ah bilyanka qof ee ku nool dalkani Shiinaha. Waa in aan la imaadaa wax aan kaga duwanahay dadka aan la noolahay. Wuxuuna dareenkeedii sii laba kacleeyay kadib markii ay dhashay cunugteedii ugu horreysay. Inta ay ag fariisato cunugteeda, madaxana ka salaaxdo ayay ku dhahaysay, inta aad weynaato miyaad noqonaysaa sideeda oo kale, oo miyaad soo maraysaa waddadii qallafsanayd ee aan anigu horey u soo maray. Suuragal ma ahan in aan dhibkii aan anigu soo maray kugu fiirsado. Hadda waa in aan xaaladda noloshayda wax weyn ka beddelaa si ay noloshaada u badbaado, isla markaana u noqoto mid qurux badan oo raaxo leh. Wenjuan ayaa dib boorka ugu jaftay riyadeedii hore, waxayna dhowr sano kadib bilowday barashada cilmiga daawada. Waayo cilmigani yaraanteedii ayay jecleed, welina kama tanaasulin barashadiisa. Waxayna dareensaneed ganacsiga daawada in uu leeyahay faa'iido iyo macaash tiro badan. Waxayna maalmo kadib qaadatay go'aankii ugu khatarsanaa nolosheeda, kaa oo ahaa qaraar, geesinimo iyo calool adeeg leh. Inta ay aaday iskuulkii ay macallimada ka ahayd, isla markaana gashay xafiiskii maamulaha, ayay maamulkii ku wareejisay warqadihii ka tegidda shaqada macallimada ee is-casilaadda. Waxayna macallimiinta horteeda ku ballan qaaday in ay shaqadaani macallimada ah dib ugu soo laaban doonin inta ka dhiman nolosheeda. Haddaba markii ay ka soo tagtay iskuulkii, waxaa horey u soo raacay qaar ka mid ah macallimiintii iskuulka ay ka tagtay wax kala dhigayay. Waxayna ku dhaheen go'aanka aad maanta qaadatay ka laabo. Laakiin ayadu waxay ku jawaabaysay, maya, waan sidaan u qaatay go'aankan. Kama harin asxaabteedii. Guriga ayay ugu sii daba tageen, waana isugu tageen. Waxayna ku tilmaameen go'aankeeda mid doqonnimo ah. Waxayna ku cabsi geliyeen in ay fashilmi doonto oo la arki doono ayada oo baagamuuddo ah, isla markaana lacag la'aan ah. Waxaan nasaaxo laguma sheegi karo ee cabsigelinta ah. Anigu dhag jalaq uma siinayo, ayay dhahday Wenjuan. Waxayna intaasi sii raacisay nolosha rutiinka ah ee daalka badan, haddana shiidka ah kuma sii jiri karo. Waa in aan ka xoroobaa. Haddaba Wenjuan waxay guda gashay mashruuceedii ganacsiga. Waxayna la soo baxday intii yarayd ee lacag ah ee ay hore u tacabtay. Waxayna isu keentay 10 dhalinyaro ah oo ku wanaagsan dhanka daawada. Waxaana sidaasi ku bilowday shirkadeeda daawada ee maanta dunida caanka ka ah, gaar ahaan dalkeeda Shiinaha, isla markaana lagu magacaabo Hanso. Markii ay maalmo shaqaynaysay, suuqana ku xiiqday, ayay ninkeedii dad ugu dhowaa waxay ka codsatay in uu caawiyo. Laakiin waa diiday in uu garab siiyo xaaskiisa hamiga sare leh. Wuxuuna mashruuceeda ku tilmaamay mid waali ah. Wuxuuna ku dhahay, maxaad shaqadaadii ugu soo tagtay? Anigu ha i galaafanin, diyaarna uma ihi in aan waayo shaqadayda. Haddaba dadka guul gaari doono waxaa astaan u ah inta ay safarka guusha ah ku jiraan in ay heli doonin cid caawiso. Ogow haddii lagu caawiyo in aadan gaari doonin guul dhadhan iyo xiiso leh. Wixii intaa ka dambeeyay, Wenjuan way isku tashatay. Dhan kalena waxay bilowday in ay barato culuumta ganacsiga si ay mashruuceeda ganacsi iyo guud ahaan nolosheeda u maarayso una hormariso. Markii ay xoogaa guul ah gaartay, isla markaana heshay qadar lacag ah, waxay shaqaaleysiisay tiro dhalinyaro oo khubaro ah, kuna xeel dheer dhanka daawada. 2 sano kadib waxay Wenjuan awooday in ay qabsato suuqa daawada ee dalkeeda Shiinaha, isla markaana caan noqoto. Isla 2 sano gudahood waxay Wenjuan gacanta ku dhigtay lacag faa'iido ah oo lagu qiyaasay $2 bilyan. Guushaani weyn kadib, Wenjuan waxay dareentay in ay shirkadeeda suuqa ku sii haysan karto oo keliya marka ay la timaado horumar iyo hal abuur cusub. Si ay u sii hormariso shirkadeeda, waxay Wenjuan la timid fikrad ah in ay qadar ka mid ah lacagaha faa'iidada ku maalgeliso mashruuc cilmi baaris ah oo daawo loogu baadigoobayo cudurrada khatarta ah sida kansarka, strooga iyo cudurrada halista ah ee bini'aadamka ka haleela dhanka caloosha. Haddaba shirkadda daawada ee macallimadani waxay suuqa daawada ee dalweynaha Shiinaha haysatay muddo ku dhow 20 sano. Waxayna muddadaani daawadeeda gaartay bulsho lagu qiyaasay $1.5 bilyan
kuwa oo si xoog leh ugu faa'iidaystay daawada shirkadda. Markii uu faafay fayruska koronaha, waxaa dunida ku habsaday dhibaatooyin badan oo dhanka dhaqaalaha ah, waxaana adkaatay isu socodka. Sidaas darteed, waxaa gudaha dalka Shiinaha iyo guud ahaan caalamka gabaabsi noqday daawadii. Laakiin Huinjuan waxaa u suura galay in ay daawadeeda gaarsiiso dadka bukaanka ah ee u baahan. Sidoo kale, waxay awooday Huinjuan in ay tartan xiise leh la gasho shirkadaha daawada soo saara ee dalalka reer Yurub iyo Waqooyiga Ameerika. Hadda Huinjuan waa haweeneyda saddexaad ee ugu hodansan dumarka xoolaha leh ee ganacsada ee dalweynaha Shiinaha, waxaana lagu qiyaasaa hantideeda $15 bilyan.